bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada casharkeenii shanaad aynu maanta kaga hadli doono taagaga ama tagiska ama elementiska lagu dhex qoro head sectionka. casharkii ka horeeyay waxaan soo sharaxnay in HTML page-ku uu u qaybsamo laba qaybood oo waaweyn oo ah head section iyo body section, ama laba tag ama laba element oo la kala yiraahdo head tag iyo body tag. waxaan soo sheegnay waxa lagu qoro head tag-u ama head tag dhexdiisu inuu yahay wax aan ka soo muuqanin main page-ka ama browser-ka qaybta body-ga aan ka soo muuqan ama qaybtan ka soo muuqanin. bal markaa waxaynu baranaynaa tagiskaas iyo ujeedooyinka loo isticmaalo. waayo waxaynu nidhi dhammaan tagiska lagu dhex qoro head section-ku kama soo muuqdaan maxay main page-ka ama page-kaaga kama soo muuqdaan. marka su-aashu waxay noqonaysaa haddaba waxay faa'iidadoodu miyaa la iska badaayo? haddayna meel laba ka soo muuqanayn miyaa la iska daayo? bal markaa waxaynu eegaynaa tagiskaasaynu maanta baranaynaa qaar ka mid ah iyo iyo bal faa'iidadooda waxay yihiin mar haddayna soo muuqanin waxa faa'iidada kale leeyihiin. taagaynu maanta baranayna waxaa ka mid ah title tag oo aynu horeba halkan aan example-ka idinku qoray. title tag sidaan idin sheegaba wuxuu kasoo muuqdaa window tab-ka ama title-ka page-ka lagu furay browser-ka. qaybta yaru kasoo muuqdaana waa qaybta sare window tab-ka ama browser tab-ka. isagu waa taaga keliya ee taagaga lagu dhex qoro head section-ka meel kasoo muuqdee la arko taagan weeyaan. dhammaan kuwa kale aynu halkan ku qori doonaa ama aynu example-iskooga soo qaadan doono maxay hayday ma soo muuqdaan, kama soo muuqdaan meel laba, laakiin waxay leeyihiin maxay faa'iidooyin kale. soo bal markaa waxaynu eegi doonaa one by one baynu uga hadli doonaa. taagga u horreeyaan doonaya inaynu maanta soo qaadano marka waxa weeyaan style tag iyo bal faa'iidadu leeyahay waxa loo isticmaalo maadaama aanu soo muuqanayn. so style tag waa kan sidoo kale waxaad qoraysaa maxay open tag then close tag. waayo waxaynu nidhi HTML-ka tag kasta wuxuu ku bilaabmaa maxay open, waxaanu ku dhammaadaa maxay close. laakiin qaybaha dambe insha allah waxaynu arki doonaa tags la yidhaahdo maxay empty elements loo yidhi macnuhu ah maxay haayeen qaar aan waxayna lahayn maxay ama ma laha maxay close tag male. so kuwa later arki doonaa. so taggaynu maanta baranaynaa waa style tag oo la dhex dhiga head section-ka. taggan waxaa loo isticmaalaa ama faa'iidadiisu waxay tahay waxa weeyaan CSS. HTML introduction-ka markaan ka soo hadlayay waxaan soo sharaxay in HTML-ku uu qaybsamo maxay laba qaybood. qayb la yiraahdo maxay document structure ama semantic markup oo ah tagiskan aynu imika halkan ku arkayno sida body, head, title, style. waa maxay waa structure-ka page-ka oo waa maxay HTML elements ama HTML tag. iyo qaybta kale labaad oo la yiraahdo maxay formatting ama presentation markup. taa mar dambe aan ka hadli doonaa waa CSS file. marka sababtan u soo qaadanaya waxa weeyaan inaynu taggan fahanno. CSS-ka insha allah markaan gaadhno waxaynu ka hadli doonaa ama wuxuu u qaybsami doonaa saddex qaybood. waxa la yiraahdo inline CSS iyo internal CSS iyo external CSS. marka taggan aynu maanta soo qaadanay style tag ee head section-ka la dhex dhigayo macnihiisu waxa weeyaan waa CSS baynu isticmaalaynaa ama shaqo CSS baynu noo qabanayaa. shaqada CSS-ku inoo qabanayaana waxa weeyaan internal CSS. tusaale ahaan haddaan doonayo imaka head tag-gayga halkan ku qoran ee qoraalkan iigu dhex qoran yahay sidaynu halkan browser-ka ku arkayno qoraalkan farta madowday, haddaan u baahanay farta inaan casaan ka dhigo maxaan samaynayaa? waxaan soo qaadanayaa tag name-ka oo waxaan odhanayaa heading 1 parenthesis, deedna waxaan qorayaa maxay color simply, deedna waxaan iska odhanayaa maxay red, dabeetana save. imaka haddaan browser-kii ama page-kayga haddaan refresh garayo sidaynu halkan ku arkayno fartaydu waxay isku bedelaysaa color-keeda maxay casaan. so taggan waxaa la yidhaha style tag, waxaa lagu dhex qoraa head section-ka. haddaad aragtid in style tag la isticmaalayana macnaheedu waxaad isticmaalaysaa internal CSS. so sidaynu halkanba ku arkayno
waan casharkii hore basic structure-ka HTML kaan idiin soo sharaxayna aan ku soo sheegay HTML ku wuxuu ka koobnaa baynu nidhi maxay tags plus attributes plus value. So waxaynu imika halkan ku arkaynaa sidoo kale style tag inay isticmaalaysa maxay type attribute oo value-geedu yahay maxay text and CSS. So macnaha value-gan ama intan waxay sheegaysaa maxay in style tag shaqada aad u isticmaalaysa ama uu ku qabanaya uu yahay CSS. So haddaad aragtid style tag waa inaad markaba xasuusataa maxay inaad CSS ku sameynaysid page-kaaga. CSS-ka aad isticmaalaysidna inuu yahay internal CSS. meel kale uu ka soo muuqanayo taagani ama effect kale ama wax kale uu leeyahayna ma jirto, laakiin shaqadu inoo qabanaya waa maxay waa shaqada CSS-ka ah maxay internal CSS. waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahanteen tagga style iyo waxa loo isticmaali doonaba ama waxa loo isticmaalaba. casharka ku xiga intaynu ku kulmi doono waxaan idin leeyahay practice wanaagsan halkaa inoogu joogo cashar.